السلام عليكم أصحابتا kusoo dhawaada Somali Truck Show meel walbo adduunka ka joogtaan waxa idin leeyahay maalin wanaagsan haddii maalin ku tahay habeen wanaagsan haddii ay habeen ku tahay sida arkaysiin rarkayga waa soo qaatay oo tripkan waxa waaye from Wisconsin ayaa ka baxaya waxaana ku socda Kansas haddii oo ilaahay karaale naqdo subax ayaad ku dejinaya Kansas rarkan marka asxaabta haddii ay channelka hadda kuugu horeyso subscribe saar gambaleelka furo si aad ula socoto fiidiyoyaasha cusub aan soo geliyo haddii aad hore noola joogtay oo aad fiidiyoyaasha la socotid oo yacni subscribe channel ku saaran yahay waa ku mahadsan tahay soo laabashadaada marka asxaabta sida aragtaan hadda rarkan waxaa ka soo qaaday xaafadahan dhexdiisa oo warehouse-ka ka soo qaaday waa warehouse aad iyo aad qadiimi u ah oo yacni doq ah waqti horay la dhisay marka sida arkaysaan xaafadan ayaa dirtaan ku dhex soconaya xoogaa kadib insha Allah waxaa qabsan doona I-94 ka I-94 West oo dhinaca Wisconsin ah sidaas ayaana ku mari doona I-94 ka 35 ka ayaa Minnesota ka qabsanaya oo all the way wuxuu isiina Missouri ayaa ka gali doona state la dhaho kadibna Kansas sidaas ayaa ku tagi doona subax hadduu ilaahay karaal noqdo oo ku deji doona rarkan marka ilaahay si nabad igu geeyo asxaabta oo ku maasantiin daawashadiina wax yar kadib waxa uu istaagi doona shidaal markii I-94 ka qabsado kadibna safarkeena sidaas ayuu igu sii socon doona marka waa ku maasantiin daawashadiina sidaas ila socda السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا Somali Truck Show meel walbo adduunka ka joogtaan waxa idin leeyahay maalin wanaagsan haddii maalin ku tahay habeen wanaagsan haddii habeen ku tahay maantana sida arkaysiin shidaalkayga waa ku soo shubtay rarkayga waa soo qaatay haddana waxaa sii qabsanayaa I-94 West أيوة برتنا سفيعا إيه مقليسان ميكروفون كي إذا شيء جاي أو وايرلس كأي أو رود وايرلس مايك جوجي وكنا ما أنت يا تجابين ويا أيوة بنا عد كي سفيعا ومغشان مركا ركض هذيك إيش كيو تريب كان وحواي from Wisconsin magaalada la dhaho sida loogu dhawaaqayna Sohoymo Euclid
Wisconsin ilaa iyo Kansas. markaad dartaana sida arkayseen I-94ka ayaa qabsaday oo baraf yaryarna oo iska dada'ooya maantay hadda Moxamed da'ooy uu istaagay laakiin xalay ayaa imaaday Wisconsin oo ku dejiyey saakay marka kaasoo kacayna baraf ayaa da'ayay bannaankana wallaahi qabow zaa'id waaye oo qabowgii ayaa xadka ka baxay oo qabow zaa'id wallaahi maantay arano meeqa waayo fiiriya magaalka koofi la'aanna ma la socon kara qabow zaa'id aja wallaahi taadhiwan waaye laakiin dee waayahan winter waa ilowsama waayahan qabow zaa'ida waa ilownay marka taadigii normal nala ahaa jirayaa hadda waa la caadi ah marka rarkan sida idiin sheegay Wisconsin to Kansas waaye waa 600 ilaa 8 mayl ahay hadda 604 mayl ii hartay I-94 westigaa saaranahay Minnesota ayaa dhex mari doona Minneapolis St. Paul 35 meelahaasaa ka qabsanaya kadibna haddii oo ilaahay karaali noqdo dhinacaas iyo Iowa ayaa ka gelaya Des Moines dhinaceeda hadda dhinacan Wisconsin aad joogo dabeesha zaa'id waaye oo dhinacaas kalena barafka uu ka da'ooya marka dhinacan dabeel xad ka baxaa socoto I-35ka oo dhinaca Iowana badanaa aad u dabeel badan yahay waxaa rajaynaa maanta inay saan dhaanto dabeel zaa'ida dhacayso oo caadi maaha ilaahay nagu samagee haddana rarka wada khafiif waayo markii dabeel zaa'ida jirto waxaa fiican in rar culus wajida oo kale laakiin nasiib xumo rarka wada khafiif zaa'ida ma ahan culaysna ma ahan waa adiga 24 meelahaas waa iska khafiif marka dabeesha waa dareemaysaa ilaahay samax nagu geeyo asxaabta وحين Somali Truck Show كما سنتين داو الشدينة طريق كان from Wisconsin to Kansas رركع على سكيسي هاي لواتن إيه سدح وبدا صارنا I-94 كالها ويستي Minnesota دحمرينا كدبنا كاسي Iowa ياك قلينا في مزوري مزوري دا كانساس أو صعنا كانساس أصوه ريسو no Kansas hadda bas Missouri yaa kasii gelaynaa tani xaalna okay hadda Wisconsin ku jiraa wax yar xoogaa yar kadib waxaa gelaya Minnesota from Minnesota waxaa gelaya Iowa oo dhinaca I-35 Iowa kadibna waxaa gelaya Missouri Kansas I-35 ayaa ku tagi doona hadduu ilaahay karaala noqdo subax ayaana laga rabaa rarkan marka maanta waa khamiis subax iyo jimce ayaa laga rabaa deliverygan garofankan si fiican weli muusan abgaraynin waa iska tijaabinooyaa boxka unbaa ka saaray waxaa rajaynaa codkiisa si fiican inaa u maqashaan waa Rode wireless mic googi aan idiin sheegay mic go 2 waaye kan cadka isticmaali jiray wireless mic oo hal xabba waaye kan laba xabba waa kan kala boxka ku jira يعني لaba channel waa laba qof hadda ahaa lahayn oo kale hadda waa hal mar asal isticmaali karnaa marka waxaan rajaynaa codka inuu si fiican idiin soo gaaro saacadda ku xiran Somali Truck Show meel walba adduunka ka jirta oo kuma santihiin daawashadiina please subscribe saar haddii oo channelka hadda kugu horeyso like saar comment ka bixi commentigana yara iiga ka dhiibo mid malaana caadi waaye marka qabowga caadi ma ahan winter كان يعني هذا ما تاريخ هاي سجادي تمام واحد سنة كيورا ساعة أنا كلو winter زائدة ميلون برف زائدة كده هاي لكن هذا حاجة غير وصلت هاي هذا ببلاونا وياه مرك دب أيا يودي كوميتي winter كان هذه مشاخير دوام تا
wax yar hadda intaa ka shaqaynooya iiga filan yani winterka waxaa soo dhow mar dhow insha allah xilliga aadi lahay africa yani nairobi ay aadaa mar dhow insha allah hadda ilaah kala noqdo marka adiga wiiga dambaba tariilaha waa dhigaa wiigaanaaba iigu dambaysa wiiga dambo oo thanksgivinka ah waxaa rajaynaa inaad tariilahan aniga iska lihi rent waaye aan illinois dhigo diyaadka qoyobo kadibna Houston aado kadibna saas isku sii diyaariy safarkayga shopping sii samaysta sii diyaariy Nairobi saas ku aado hadduu ilaahay kalaal noqdo marka winterkaa ma shaqaynay waxaa soo laabanaya samarka ciidda kadib insha allah sidaas iyo la socda videona waa ka samayn doonaa kale markaa tariilaha dhigaa iyo waxaas waa arki doontiin insha allah marka asxaabta kumaasantiin daawanaysay Somali Truck Show meel walba ka joogtaan sidaas iyo la socda waddada waa 94ka marka saasa uu yaacaya hadda waa aragtay shidaal soo shaqtay wax walba awaday waxaa rajaynaa meesha in street haddaa u tagi karo u tagaa tii kalena meel u dhow tago kadibna subaxii iska dajiyo rarkan ka asxaabta safarkan ila enjoy gareeya waddada ila arka waa maasantiin dhammaantiin khayr ayaa idin rajaynaa safarkeena bilaaw waaye sidaas iyo la socda asxaabta ku xidhan Somali Truck Show meel walba adduunka aad ka joogtaan waa wiigaygii iigu dambeeyey rarkan guriga jimca rarka la daaqaado isniinta waxaa rajaynaa inaan Illinois ku dejiyo ama Talaado si aad tariilaha iskaga dhigo marka sidaas iyo la socda asxaabta ku xidhan Somali Truck Show waxaa rajaynaa Houston markaa tagana interview inaan sameeyo Minnesota markaa tagana sidoo kale Minnesota waxaa rabaa inaan imaado oo iyadana sidoo kale haddaa arkaysa kaamirada inay soo qabanayso ma ogi laakiin baraf yaryar waa bilbilaaw waaye marka asxaabta sidaas iyo la socda waddada waatana barafka iyo qabowga ila arka marka safarkeena ila geeya rarka waa maasantiin dhammaantiin asxaabta kusoo dhawaada Minnesota welcome to Minnesota kusoo dhawaada right away waxaan lagu soo dhaweeyay way stationka oo Minnesota 94ka markaa soo gashay way stationka ugu horeeya waa open kaamirada inay soo qabanayso hadda ma ogi laakiin nalalka markay flash gareysmayaan way station open when flashing haddana way nalalka way flash gareysmayaan marka aniga dhanba culeyskaygii waa 23,000 pound shidaalka kusoo shubtay 24,000 iska dheh haddana sidaad arkaysaan way stationka ayaa galayaa way stationka waa furan yahay speedka gudaha way stationka lagu galaya waa 25 miles per hour isqaboojino qaybta miisaanka maafuulo ها تمام اي bedeleen okay yeah man miisaamayaan miisaanka mafuulay because ani dhanba 24,000 pound wada computer ayaa gudaha u yaalo oo sheegayo marka way ogaadeen inaan culays saas wadin kadib bypasska isiiyeen bypasska waxaa waaye miisaanka soo fuulin lineka kaleeto waddada ku laabo maantay bismillah afar state oo baraaba joogtaba miisaanka way stationka 94ka badanaa mar walba waa furan yahay habeenkii intaa ka ahayn 10ka waxa ka dambeeya
hadda waa state trooper badanaa meesha fadhiyey haddii aad isku daydidoo kale maybe xuf inaad ku martid oo aadan gudaha soo gelin adoona bypass lagu siinin way ku soo bursanayaan ku soo eriyanayaan ku istaajinayaan tigiday ku sii karaan horta way station dadka aanan janalka ku cusub oo fahansaneen waxaa laga wadaa waa department DOT Department of Transportation meel farteen oo taraagiyada lagu miisaan taraagiyada limid ay leeyihiin miisaankooda xadoo leeyahay iska waxa rarka doonta iska saar iska soco ma ahan marka taraagiyada meeshaan oo kaleeto meelo badan oo saana wadooyinka dhan ku wareegsan state walbo marka waa lagu miisaamayaa haddii oo limidkaaga waxaa waaye 80,000 oo pound haddii ka kor martid oo kale ama aksaladana waxaa waaye 12,000 pound 34,000 pound driveska iyo stay tire marka haddii oo limidkaaga oo kale oo xad ka baxyahay oo sida loogu talagalay dhaafsan yahay waa ku istaajinayaan tigida ku siinayaan ilaa aad ka saxdidna ku sii daynayaan marka asxaabta waa tan Minnesota hadda soo galnay west area Minnesota ugu horeysa waa tan dhinaca 94 ka markii laga imaado way stationka waa soo marna waa arkayseen sidaas iyo la socda okay asxaabta subax wanaagsan waxaa jooga pilot oo meeshii ararku wada wax yar u jiro marka ilaahay ayaa mahad iskale waa subax aad iyo aad u qurux badan ilaahay mahadiisa nabad igu soo kiciyey haddeertaan meesha ararka u wada wax yar ayay ii jirtaa oo saas igama foga marka wax yar kadib waa tagi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo marka asxaabta waa ku mahadsantihiin daawashadiina videogan haddii aad video ilaa halkan soo gaarto please subscribe share like share comment ka bixi ra'yiga ka dhiibo marka asxaabta khayr ayaa idin rajaynaa videogan iyo videoga xigo insha Allah waxyar kadib meesha deliveryga ayaa tagaya kadibna waa arkaysiin baakinka markaa galayo iyo everything insha Allah marka sidaas ayaa idinkaga tagay khayr ayaa idin rajaynaa dhammaantiin videoga dhamaystirta khayr ayaa idin rajaynaa